السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo noqod wanaagsan daawadayaal waa Ustaad Cabdirasaaq Yacquub channel weli waxaynu ku dhex jirnaa casharadeenii barashada QuickBook casharkeena shanaad ee maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa creating vendors qaabka loo abuurto vendor horey ayaynu u soo sheegnay waa xarumaha qofka ganacsiga leh uu ka soo dukaamaysto ama uu ka soo adeegsado ayaa waxay ku yihiin vendor marka vendorkaas ama meelahaas laga soo adeegtay dukaamada si ganacsiga qofka ganacsiga leh meelaha uu wax ka soo iibsado ayaa loo yaqaanaa vendor marka si aad u kaydsato dadkii aad la tacaamulaysa ganacsi ahaan ama xiriirka idinka dhaxeeyay si aad u kaydsato macluumaadkooda waa inaad abuurataa vendor marka vendor saan u abuurano maxaana looga baahan yahay sidaan hore u soo sheegnayba marka hore waa inaad soo gashaa QuickBook aad abuurataa kambanigii markaad abuurto kambanigaaga meesha ayaad ka wadanaysaa hawshaada waa yahay vendorkii si aan u abuurano marka hore waxaynu gelaynaa qaybtan vendor la yiraahdo ayaynu gelaynaa waa halkan saad u jeedaan vendor markaad gasho waxaad dooranaysaa vendor center qaybtan waxaynu ka dooranaynaa vendor center waa yahay vendor centerka waa halkan aad u jeedaan ayaan hadda soo zoom gareeyay waa qaybtan vendor center markaad doorato waxaad ka sii dooranaysaa haddana qaybtan la yiraahdo new vendor aynu soo dhaweysana shaashada qaybtan waxaynu ka dooranaynaa meeshan la yiraahdo new vendor waa halkan hadda aan idin calaamadayn doono waa new vendor waayahay new vendorkii markaan galno aan doorano new vendor sida shalay customerkii oo kale ama casharkii hore aynu u soo qaadanay customerka sidaan u abuureynay waa inaad gashataa halkan ama aad ku qorataa macluumaadka qofkaas ama xaruntaas adiga aad ka soo adeeganaysid ama tacaamulka ganacsi uu idinka dhaxeeyo ee alaabaha ganacsigaada aad u adeegsanaysid aad ka soo iibsanaysid waa yahay vendorka hadda waxaynu ka dhigaynaa tusaale hubaal trading ayaan dhahay oo kale tusaale iska tusaaloon waa company namekii marka meeshaas waxaynu ku qornay hadda magacii meeshii xaruntii vendorkan oo ahayd qaybtana waxayna gashan doonaa company name waa isla magacii vendor namekii ayaynu gashanaynaa job title qofka aad kala tacaamulaysid magaciisa ama inta waxaynu ku qoran karnaa vendor nameka qofka aad la tacaamulaysid magaciisa company nameka shirkadii job title shaqada uu ka hayo telefonadii intaas ayaad qoraysaa emailkii waa yahay aynu aragno marka qaybtan vendor name waxaynu ku qornay Huwal Trading company name aad kala tacaamulaysaa kambanigaas ama kambaniga magaciisa aad ku qoran kartaa halkan inta waxaynu ku qoranay Ibrahim qof la yiraahdo Ibrahim job title shaqada uu ka hayo magaca guud ee ku soo bixi doona waa midkan Huwal Trading laakiin qaybahan waa qaybaha hoose job title waxaanu ku qoraynaa shaqada uu ka hayo waa managerkii shirkadaas phone telefonka uu leeyahay telefonkii ayaynu ku qornay waa yahay telefonka ayaynu ku qornay halkaas waa yahay qaybtan emailka uu leeyahay main email huwaltrading@gmail.com oo kale emailkii ayaynu ku qornay halkaas waa yahay marka intaas waa qaabkii aan u abuuran lahayn vendor abuurashada vendorka hore waxaynu u soo abuurnay customer waxaynu u abuurnay account companygii waxyaabahaas dhan aan soo sameynay marka casharada sidaas ayay isula xiriiri doonaan insha Allah marka waxaan idinka rajaynayaa inaad ka faa'iideysataan insha Allah oo aad asxaabtana la wadaagtaan si iyagana ay uga faa'iideystaan ugu dambeyn markaad intaas diyaariso waxaad riixaysaa okay markaad riixdo isla markii halkan waxa ku yimid inta waxa ku soo galay vendor namekii Huwal Trading saad u jeedaan waa halkan intana waxa soo gali doona tacaamulka idin dhexmari doona tacaamulka idinka iyo idin dhexmari doona ayaa halkan muujismi doona insha Allah marka casharkeena maanta halkaas ayuu ku eegyahay waxaynu idinka codsanaynaa inaad subscribe saartaan oo aad la wadaagtaan asxaabtiina iyagana si ay uga faa'iideystaan insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.